waa mar kale iyo taxanihii afgembiga dhicisoobay oo ka warrama qisada isku dayga afgembi ee 2016 ka dhacay dalka Turkiga. qaybtii tan ka horeysay waxa aynu ku soo aragnay cadeymo dheeraad ah oo muujinaya in shisheeye uu ku lug lahaa afgembiga Turkiga ka dhacay. Mareykanka oo diiday inuu wax ka ogaa iyada oo diyaaradihii kooxaha afgembigu isticmaalayeen ay ka soo kacayeen garoomo ay degan yihiin ciidamo uu leeyahay. kaalinta loo malayn kara in CIA ay ku lahayd qorshihii lagu khaarijinayay Erdogan. Ruushka oo bixiyay xog qayb ka qaadatay fashilinta afgembiga. maxadka howlaha sirdoonka ee Stratford oo tallaabo u faafinayay hadba halka ay marayso diyaaradda uu ku baxsanayay madaxweyne Erdogan ee ay kooxaha afgembigu baacsanayeen. sababta midowga Yurub uu uga raali noqon karayay afgembiga xukunka lagaga tuurayay Erdogan. Faransiiska oo u muuqday inuu xog ka sii helay afgembiga, iyo ugu dambeyntii waxa uu ahaa buuggii uu madaxweyne Erdogan hadiyadda uga dhigay madaxweynaha Faransiiska oo dhaliilay tallaabooyinkii dowladda Turkigu qaaday afgembiga kadib, isaga oo aan dhaliilin isku dayga afgembiga ee ka horreeyay. kusoo dhawaada qaybta 14aad ee taxaniheenan oo toddobaad kasta Isniinta iyo Khamiista aanu halkan idinkula wadaagno. Israel. inkasta oo ay Turkiga iyo Israel muddo dheer lahaayeen xiriir istaraatiijiyadeed iyo iskaashi dhinacyo badan leh, laguna tilmaami jiray Turkigu inuu yahay saaxiibka ugu weyn ee ay Israel ku leedahay gobolka Bariga Dhexe, haddana waxaa 10kii sano ee u dambeeyay jiray isfahmi waa ay markasta xukuumadda Israel iyo hoggaanka cusbaa ee Turkiga ee xisbiga cadaaladda iyo horumarku isla garan la'aayeen sida ugu habboon ee saaxiibtinimadaas loo sii wadi karo, iyadoo aan ka hor imanaynin aragtida uu xisbigani doonayo ee ah inuu si dhigo quwadda muslimiinta gaashaanka u ah. waxayna hore uga soo warranay in Israel ay bilowgiiba ka biyo diiday qaabkii uu taliyaha sirdoonka Turkiga Hakan Fidan u nadiifiyay hay'adda sirdoonka Turkiga oo hore u ahayd wakaalad ay Mossad awood aad u weyn ku dhex leedahay, heshiisyo danta ugu badan Israel leedahayna ugula jirtay. haddaba in Erdogan uu waxba ka qaban waayay cabashooyinka dhinaca wakaaladda sirdoonka ah oo marar badan Israel soo gudbisay, iyo inuu Erdogan si bareer ah caddaan u taageeray qadiyadda Falastiiniyiinta oo uu booqday marinka Gaza ee muddada dheer xayiraadu saarnay, isla markaana ku dhiiraday inuu masraxyada siyaasadda ee adduunka kaga hadlo xaaladda Falastiiniyiintu, waxa ay noqotay calaamad cad oo Israel tustay in Turkiga Erdogan hogaaminaya aanu la mid ahayn Turkiga ay hortii taqaanay. murano diblomaasiyadeed oo marar kala duwan Turkiga iyo Israel soo dhex galayna waxaa markasta ku gacan sarreynaya Turkiga oo marar door ah arrimo kala duwan ku qasbay in ay raaligelin ka bixiso xukuumadda Israel, waxaana ugu dambeysay doonidii Marmara ee caawimada u siday dadka ku go'doosan marinka Gaza, taasoo ciidamada Israel inta ay galeen sanadkii 2009 ay ku dileen dad u badan Turki, laakiin Israel ay ugu dambeyntii ogolaatay inay raaligelin ka bixiso weerarka ay ku qaaday doonidan, isla markaana magdhow lacageed oo badan ay siiso qoys kasta oo Turki ah oo uu qof kaga dhintay weerarkaas. arrimahan marka lagu daray wararkii bilowgii isku dayga afgembiga ka soo baxay Israel iyo sida ay xukuumadda Israel ula dib dhacday ka hadlidda afgembigan, ayaa lagala soo bixi karaa inuu yahay calaamad raalli ahaansho oo Israel ku qaabishay isku daygaas afgembi ee xukunka lagaga tuurayay madaxweyne Erdogan. sabab kale oo Israel loogu aanayn kara inay ugu yaraan raalli ku noqon karto in Turkiga uu ka dhaco afgembi bedela xukunka madaxweyne Erdogan ayaa ah in General Akin Öztürk oo aynu hore u soo sheegnay inuu ahaan jiray taliyaha guud ee ciidamada cirka, isla markaana uu ka mid ahaa hogaamiyaasha ugu tunka weynaa isku dayga afgembiga ee fashilmay, inuu hore uga tirsanaan jiray safaaradda Turkigu ku leeyahay Israel oo uu ka ahaa xogayaha militariga sanadihii u dhexeeyay 1996 ilaa 1998, iyada oo dhinaca kalena sida uu ku warramay telefishinka CNN Turk sanadkii 2016 ka hor uu soo baxay war sheegaya xiriir uu General Öztürk la leeyahay wadaadka Mareykanka ku nool ee Fethullah Gulen. wargeyska Haaretz ee Israel ka soo baxa ayaa warbixin uu qoray fashilaadii isku dayga afgembiga kadib waxa uu ku sheegay mid ka mid ah hogaamiyaasha isku dayga afgembiga waday ee ay xukuumadda Turkigu xidhay inuu ka howlgeli jiray safaaradda Turkiga ee Tel Aviv, laakiin markii dambe loo wareejiyay Turkiga oo loo magacaabay taliyaha guud ee ciidamada cirka Turkiga ka hor intii aanu howlgab noqon, isaga oo sii haysta xubinimadiisii golaha sare ee militariga Turkiga. wargeyska oo u kuurgelayay sababaha keeni kara in Israel ay uga dib dhacdo waqtigii ku habboonaa inay ka hadasho mowqifkeeda ku aadan isku dayga afgembiga ayaa sheegay in Israel ay aamusnayd xitaa xilli ay Mareykanka iyo dalalka Yurub dhaleeceeyeen afgembiga, isna garab taageen xukuumadda la doortay ee Erdogan. waxaanu warka Israel soo baxay markii ay si fiican u caddaatay inuu fashilmay isku dayga afgembigu.
ma jirto cid ka mid ah xukuumadda Israa'iil oo ilmo u qubi lahayd xukuumadda Erdogan haddii subaxnimadii Sabtida ay soo toosi lahaayeen madaxweyne Erdogan oo xabsiga lagu tuuray, halka imika ay indhaha ku kala fureen war aanay jeclayn oo ah taageerayaasha Erdogan oo buux dhaafiyey gegida diyaaradaha ee Istanbul oo ay ku qabsanayeen dabaaldega ay ugu damaashaadayeen fashilaadda afgembiga. Sidaas ayaa uu qoray wargeyska Haaretz oo intaas ku sii daray in markii wararka afgembiga ka socda dalka Turkigu iska soo daba dhaceen ay mas'uuliyiinta Israa'iil ku wargeliyeen ra'iisul wasaarahooda Benjamin Netanyahu halka ay hadba maraysa xaaladdu iyo hadba waxa soo kordha. Isla markaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ay degdeg u samaysay xafiiska la socoshada wararka Turkiga oo ururinayay wararka ay warbaahintu ka soo tabiso dhacdadan iyo wararka laga helaya safaaradda iyo qunsuliyadda ay Turkiga ku leeyihiin ee magaalooyinka Ankara iyo Istanbul si ay uga sameeyaan xog miisaaman. Iyada oo warkaas oo dhan haysa ayaa haddana Israa'iil saacado badan la socotay oo aanay wax jawaab ah ka bixin. Wargeyska oo arrintaas warbixintiisa kaga hadlaya ayaa qoray waxaa jirta sabab adag oo keentay aamuska Israa'iil ay ka aamustay dhacdooyinkaas Turkiga ka socday. Xaqiiqada ah in xiriirka Turkiga iyo Israa'iil uu xasaasi yahay iyo in dhowaan ay labada dowladood dib u wanaajiyeen xiriirkooda oo muddo dheer go'an ah ayaa ka mid ah arrimaha laga yaabay inay Israa'iil ku kalifeen in aanay dhaqso uga dareen celin isku dayga afgembiga. Ugu dambeyntii muddo 15 saac ah markii laga joogay fashilaadda isku dayga afgembiga ayaa waafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil soo saaray war murtiyeed uu ku yidhi Israa'iil waxay ixtiraamaysaa dimuqraadiyadda Turkiga waxaanay rajaynaysaa inuu sii socon doono heshiiskii nabadeynta ee ay kula jirtay Turkiga. Marjaan Tube.